kordhawaad dhowr iyo 10 oo arday oo qalin bedelatay macadka barashada luqadaha Express Education Institute waxaana uu maamulka macadka xaflad dhiirigelin ah u sameeyay ardayda qalin bedelatay taa oo lagu maamuusay qalin jabintooda ardayda oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa sidoo kale la guddoonsiiyay shahaado ka turjumaysa wixii ay barteen xafladda waxaa ka soo qayb galay waalidiin macallimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay waxyaabihii la baray. Peace of Allah be upon you. First, I thanks my Almighty God who has given me this golden opportunity to stand in front of this populated place. Secondly, let me introduce myself. My name is Farhi Abdi Ahmed. I am from Express Educational Institute of Language. Tidaadan baal weeyaan waqtigu rajada guusheeda shaa aqligu waa daamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaana ka wacan ka dayadhaliishu waxbay saxdaa ereen waxaa loo dhigtaa dhankiisa wanaaga lehe haddaa tahay ruux dhibsada wuxuu dhahay ruuxu dhaadhagtii afkaas maqlaan adkaysi haddaad u dhan lafeeftaa lagu dhaqmaa. Today I want to advise how you successful. What do you do when you have been telling yourself you can reach your goal and you are losing every day? What do you do when you have been telling yourself you can reach your goal and you are losing every day? What do you do when you are losing your spirit, you are losing everything, life has been devastating. Once you are defeated in your mind, ladies and gentlemen, it's all over. Your problem is your brain has identified you. Your brain has weakened you. You have a choice how you respond to your brain. Why education is important? Because education is a process of expanding learning, acquiring language, values, and future. It contributes of development of better people around the globe. It is more of an enduring method in which people gain information, skills, and ethics. dhinaca kale intii ay socotay xafladda ayaa ardaydu waxa ay soo bandhigeen ruwaayado iyo ciyaaro kala duwan kuwa oo ku aadan ahmiyadda ay bulshada u leedahay waxbarashada qaar ka mid ah waalidiinta ardayda ee xafladda ka hadlay ayaa u mahad celiyay macallimiintii juhdiga ku bixiyay waxbaridda ardaydan qalin bedelatay ee macadka barashada luqadaha Express Education Institute iyagoo markaa sheegay in macallimiintu ay duruufo kala duwan ku soo waxbareen ardayda. runtii waxaan rabaa inaan maartay Allah mahad leh waxaan rabaa inaan mahad celiyo marka ugu horeysa macallimiintii runtii xaafadan midnimo runtii juhdiga ku bixisay inay maartay ay soo dhalinyaradaas inta iskool noo bilowdo runtii dhalinyaradaas ay wax bartay in badan marxalado badan oo aan ogay xaafada runtii u soo dhabar adeegay oo runtii sida wax u barayeen qaab voluntary ahaan ah ayadoo ogay xaafada inaan dhaqaale badan ka jirin inay runtii ay macallimiintaasi ay maaragtay si maaragtay voluntary ahaan ay wax ku soo wadeen aad bay macallimiintaasi u mahadsan yihiin runtiina waxa muhiim ah inay ka mina dhaliyeen maanta inay arday ay soo saaraan oo maanta ay qalin jabinayaan waxaan kaloo runtii u mahad celinayaa waalidiinta ardayda dhashay oo runtii marxaladda aan hadda ka soo hadalay macallimiinta ayaguna la soo maray. Mustafa Farah Abdullahi maamulaha guud ee macadka barashada luqadaha Express Education Institute ayaa dhankiisa sharaxaad ka bixiyay habka ay u baraan ardayda dhigata macadkooda iyo sidoo kale duruufiyaadka oo ay ku soo shaqeeyeen. Anaga haddaan nahay bahda Express Institute inaan wax bari oo aan nahay barayaal sax ah oo xaafada ka jira marka baraftka xaafada iskale cid anagu gaar u leenahayna male anagu bari way ka tagi karnaa bari marka ka tagno waxaan sameeynay arday macallimiin haddaba ka ah oo wiilal iyo gabdho ah oo aan ugu talagalnay bari kamal haddii ama dhimano ama dheeraano inay bedeli karaan ay sii joogi karaan marka ay xaafada sida u sii wadi karaan marka waalidkii ku soo inta ku soo dhawr adeegay oo intaas dadaal ku soo waday ayagana aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa kale inaan ku daro shahaadada anaga hadda macallinku soo u sheegay Soomaaliya laba shahaado hadda laga sameeyaa dugsiga dhexe iyo marka jaamacadda la aadi rabo foogaaba imtixaanka qaranka la sameeyaa laakiin jaamacadaha iyo bareefadayaasha iyo caafimaadka waxay ku tiirsan yihiin meel buu ku tiirsan yahay anaga marka maadaama aan bareefada magaalada ku yaala Muqdisho ku yaala ama Kismaayo ku yaaleen aan fiirinay midba meel buu ku tiirsan yahay qaar baa Kuwait ku tiirsan qaar baa Qatar ku tiirsan qaar baa Ethiopia marka anaga maadaama Kenya ka imaanay waxaa door badnay shahaado la garan karo qofku hadduu arday Kenya kula noqdo oo lambar leh oo shaqeynaysa shahaado waa la iska sameyn karaa Kismaayo hadda waa laga sameyn karaa laakiin waxa lagu fiican qalab baa jira adduunka oo casri oo hormaray
shahaadada wadatid inay copy tahay inay soo copy ahayn qalab waxa jira la geliyo hadday qalabkaas uu kugu dhawaaqo ama uu shaqeeyo midmiis waxay la mid tahay shahaadada photocopy waaye laakiin haddii mid ay dawladdu aqoonsan tahay ay tahay oo la garanayo shahaadadaas way hirgashay marka anaga xaggaas ayaa la leenahay linki ama xiriir la leenahay sidaas in shahaado noogu soo baxday waagi hore waxaa la jiray gabar waxaan baratay wiilow aad galaaska saa u bilownay 30 buu ahaa wiilal baa u badnaa halkaa wiil baa dhabar adeegay gabdhihiina inta u badneed hadda way joogaan way harayaan marka waalidiinta waxaa dhihi lahaa waalidiinta gabdhaha iyo wiilasha si wax loo baro yaa la dhihin adiga wiil baa tahay adiga gabaraa tahay gabar biri way guursanaysaa reer kale yeelanaysaa aniga ma anfacaysid cida kale anfacaysaa yaan la dhihin gabadhu waa gabadheeni annagaa dhalnay wiilkan annagaa dhalnay kii ilaahay wax kaa siinay ilaahay waa og subxaana wa tacaala dhanka kale waxaa goobta ka hadlay maamul ku-xigeenka macadka barashada luqadaha Express Education Institute isna waxa uu faahfaahin ka bixinaya sida ay uga go'an tahay barida luqadaha laakiin macadka Express asaaskiis koowaad 2019 asaasnay sawaha uu asaasnayna waxay ahayd in baahi loo qabo bulshada xaafadan midnimo ku dhaqan maxallaha xariyaha qaxootiga dhaab dib ugu soo laabtay sidoo kale maxaa la jiray dadka barakacayaasha oo maxallaha xaafadan degan inay maxallaha baahi weyn u qabaan dad badan ayaa ka faa'iideystay maantana maxallaha ay ka mid yihiin ardada maanta arkaysan luqadda Ingiriis maxallaha ku soo joodinaysay xafladooda maanta la qabanayo macadka Express haddii wax yar aan iga sheegno waa branch misana waa qayb ka mid ah barafidyaal weyn oo ka dhisan Muqdisho Hargeyso iyo qaxootiyada xarooyin qaxootiga Dhadhaab branch ka mid ah misana wax loo yaqaan qayb ka mid ah ayaan nahay saa ogtahay anaga waxaan ka soo laabanay xarooyin qaxootiga Dhadhaab halka markaa imaanay oo baahida loo qabay aan aragnay bulshada barafid baahida ay qabaan aan aragnay kadib waxaan sameynay barafidkana aasaasanay muddo badan ardada beeska wax badan aan ka soo dhisanay saa ogtiin dadka Soomaalida waxbarashada aad uma daneeyaan jaalanjaal kala duwan iyo dhibaatooyin badan waa la soo marnay waxa arkaysaa arday badan oo maxallaha oo yaraan hal sano oo kala hayso oo wax barayso oo muddo badan juhdi ah ku soo bixisay oo adi gacanta soo qabatay oo A iyo B ah soo bilowday markuu meel fiican u maray in maxallaha meel kale u aado oo maxalli jiray bareefada kale ha ahaato misana maxallaha waxbarasho dhan iska joojiyo marka dhibaato badan ardada hadda inta fadhiyaan qayb ka duwan oo maxaa aad u far badan ayaa maxalli jiray intan saddex jibaarkeeda way tageen boqolkiiba 9 markay tagaan haddana saasay u tahay ma ahaanayso way soo laabanayaan dib u soo laabanayaan marka intan maanta maxallaha 7 arday noo qalin jibinays arday sanadka ugu hore oo kala beeska hoose oo luqadda conversation wada sheekaysi waxyaabahaas aan ka soo dhisnaa kadib maxallaha qoraalada iyo maxalli jiray sentences wax loo yaqaano iyo waxyaabo kala duwan aan bareynaa kadib sanadka ugu dambeeyay sanad iyo barka ugu dambeeyo waxaan ka soo dhisaynay luqadda grammar wax lahayn grammarna maxallaha waa arday markuu luqad conversation waxyaabaha hoos u soo barto waxyaabaha luqadda maxallaha ka dhisayso inuu maxallaha luqadda wax saxan u isticmaalo sidoo kale qaar ka mid ah macallimiinta macadka oo ka hadlay xafladda ayaa dhiirigelin iyo hambalyo isugu daray ardayda u dhabar adeegay sida ay wax u baran lahaayeen. As to why you are not screaming not Buddhism right now. Furthermore, I want to thank my fellow teachers due to their hard work and dedication they have made so far in order to improve the personality of our students. Thank you once again for all that you do. Your hard work does not go unnoticed. Otherwise, it is your day to shine and our day to say. waxyaalo fara badan oo iskuulaadka runtii aad mar dambe dib ka imaanaysa ama 4 sano hadda kadib aad baran lahayd lagu soo koobo ayagoo muhiimad gooni ah maskaxiyan aad ku sabaysan karto sababtayna marka dambe inaad waxbarashada ma dhamaato laakiin hadba istiibiyo inaad uga maarmi karto sidii macnaha wixii muddo dheer aad baran lahayd inaad waqti kooban ku barato kadibna marka aad qof iskaafi aad noqon karto aad baan ugu hambalyeynaya macallimiintayda macallin Musdaf macallin Jaamac macallin Buudu macallin Cabdullaahi iyo macallimiinta kale ee shaqada la qabtay
marka saddexaad waalidiinta runtii waxay jecel yihiin carruurtooda inta soo istaagaan oo wax soo joodiyaan waa heebad iyo farxad iyo reen gooni ah laakiin adiga wadana waqti lagu geliyay lacag lagu geliyay lagu soo dadaalay duruufo badan ay iska jiraan aan dareemi karaa aniga haddana haddii wixii aad soo baranaysay ay noqdaan wax objectless ah oo meel ka socdaan meel kala garanaynin waalidkiina waa khasaarisay macallimiintaada waa khasaarisay adigana mustaqbalkaada mugdi baad gelisay marka waxa weeyaan ilaahay hadii anfaco runtii aad iyo aad baad ii farxad geliseen sida qiimaha mudan iyo maamuuska mudan iyo qadarinta mudan ee aad xalfadihiina u soo joodiseen iyo hadaladiinaba oo ku saabsan xalfadan waxaan leeyahay guuleysta noqda kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaco ayagana is anfaco waan idin hambalyeeynaya waayadan dambe waxaa si weyn u sii kordhayay ardayda Soomaaliyeed ee baranaysa luqadaha kala duwan sida luqadda Ingiriiska oo iminka furo u noqotay waxbarashada iyo adduunka oo dhan